waxaa magaalada Gaarisa lagu qabtay munaasabad loo qabtay Sheekh Maxamuud Cali Ugaas oo ku magac dheer Sheekh Maxamuud Deere kaasi oo muddo 2 sano iyo 5 bilood tafsiirka Quraanka Kariimka ka waday masjidka Imaam Shaafici oo ku yaala xaafadda iska degay magaalada Gaarisa. xafladan ayaa waxaa ka soo qayb galeen qaar ka mid ah culimada Gaarisa iyo sidoo kale bulshada ku nool magaalada. qaar ka mid ah culimadii ka soo qayb gashay munaasabadan ayaa ka hadleen muhiimadda ee leedahay Quraanka Kariimka ah oo tafsiirkiisa la barto. mana aha macnaheeda kitaabkii macnaha aqrintiisi iyo barashadiisi iyo tafsiirkii in la soo gabagabeeyay maaha macnaheeda ee darsigii socde maadaama min Fatiha ila an-Nas la aqriyay taasaan marka qadarinayna oo maamuus u sameeynayna macnaheeda marka ma aha in tafsiirkii Quraanka uu sidaa ku joogsaday. Deere الله كثوابي القرآن كسر رنتيا وصبري أنا وأنا قرية جوجا أما مسجد كصباح يعني فجر كل كان صوت كذا يعني مغلق شري هل كاسن كم مغلق شري إلهي بان هل كأوجبري شري إلهي كثوابي القرآن كان كريم كهد فضل جيسة وهب له واحد وقت وحبك عشيقة كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. خير الله سيا هذا تفسير كيسي وينور دميي وكتاب خير أردن وكجرو فإذا أردن دحديث آيتاي قول أردن آخرية أدوم بدحديث آيتالو بركة أردن دحديث آيتاي مركا إنو برانو أولف دقيسة آن برانو وبركة إنو تفسير كيسة إنو برانا سيدا هذا شيخ وإنو آخرين وبركة هي بركة ديسة يا خير كيسة يا وناقيسة هذا الدنيا تاي سلوغو ليبانيو هذا آخرتها سلوغو ليبانيو ونفلنتها أمان ودم بدينه يا كلام الله سبحانه وتعالى. هل آيات أو تدبرته أو تكعل علسه أو معناها أي كهلايسه أدفهنته أيا أديكو أو اسكدريريو أو أنت سوجوس كتورو هذا الشعر جيس واقريا يا كان في عاد. Sheekh Maxamuud Cali Ugaas Sheekh Maxamuud Deere oo muddada 2 sano iyo 5 bilood tafsiirka Quraanka waday kana waday masjidka Imaam Shaafici ee xaafadda iska deg ayaana la wadaagay dareenkiisa. farax fara badan iyo qiiro fara badan baan dareemayaa waxa ugu wacan nin 2 sano iyo 5 bilood soo wada amal meeshuu sigsanayayna gaadhay waxa weeyaan farax fara badan weeye iyo qiiro fara badan ayaan dareemayaa. ربي سبحانه وتعالى إيدي يريي إنان أخريو إما كميي إنان انتا صوّض من برب الناس إلى سورة الفاتحة صاك آخرين آن أخريو إلهي سبحانه وتعالى أمان فربضان بويغم مدن يهي إن فربضان بانكم مهدين هيا أو آن كوبي كرينين. Sheekh Maxamuud Deere ayaa dhanka kala dadka muslimiinta ka codsaday inay bartaan tafsiirka Quraanka Kariimka ah. Quraanka laftigiisa waan baranaa لكن معنيه سما قيمينه وحانا كم مهم سن لفظك برشاسين معني سلبرتا صوت وجدده يا دنت الله وكلها ما فهميsid hadii aad laftiga kaliya barata haba ahaada akhrinta quraanka laftigiisu taabud ha noqdo oo ajir ha laga helo xarafkiiba ajir ha laga helo laakiin waxa weeye quraanka macna looga jeedo in la fahmo danta loo soo dajiyo in la fahmo waxa uu ku saabsan yahay in laga hadlo la barto hadii ahkaam iyo haduu qisiyo tawxiid haduu yahayba. شار أحمد دقني ورباهين تيستا غارسا.